بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سينو هرو صوب لنقادني وأينو عاوة ورمضان أينو بلا بدونا مسائل كي أينو كبلا السنين يكمدها فقه وليه هي صانك لسومايو bisha ramadaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. qaabka aynu wadan doonno iyo manhajyada ku socon doonno waxay noqon doontaa inaynu ka masaa'il ahaan aynu soo gudbinno oo masale heblaayo iyo suuraddeeda aynu suurayno, xukunkeedana aynu sheegno wixii allah tabaaraka wa tacaala ina waafajiyo. allahna tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu khayrkeenna waafajiyo, ayaynu weydiisanaynaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu toosiyo midda xaqaana. allah baynu tabaaraka wa tacaala weydiisanaynaa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo soo gudbinteeda iyo dhammaystirkeeda intaba, inuu allah tabaaraka wa tacaala inoo fududeeyo aynu weydiisanaynaa. masalada koowaad aynu ku bilaabanaa waxa weeyaan mafhuumu sawm wa taariikhu tashriic, inaynu tacriifino soon maxaa la dhahaa. waxaa kaloo aynu ku dari doonaa masalo labaad oo ah goortii soonka la waajibiyey iyo taariikhda soonka la waajibiyey. haddaynu ku bilaabanno markaas soonka inaynu tacriifinno, soonka loo ahaan waxaa la yidhaahdaa alimsaaku walkafa can shay, shay in laga joogsado ayuunbaa soon la yidhaahdaa. qofka musaafirka ee socotada ah hadduu socodkii uu joojiyo waxaa lagu magacaabaa saa'im baa lagu magacaabaa luqadda carabiga. qofkii hadlaayeyna hadduu hadalkii joojiyo u aamuso isaga luqadda carabiga waxaa la leeyahay fulaanun saa'imun ay saakitun, macna uu aamusan yahay ayaa la leeyahay. waxaad dareemi kartaa aayadda qur-aanka ah markii ay la hadlaasay maryama, ay la hadlaasay reertolkeed, waxay ku tidhi innii nadartu lilraxmaani sawman falan ukallima alyawma insiya. waxay ku tiri anigu maanta waxaan ugu nadaray allaha raxmaanka sawman ay sukuutan, macna aamusnaan baan ugu nadaray. cid maanta aan la hadlayn haba yaraatee ma jirto. sawman markaa luqadda carabiga iyadoo qur-aan ku soo aroortay maxaa marka loo adeegsanayaa? sukuudkii iyo aamusnaantii ayaa loo adeegsanaya. waa hadalkii oo laga joogsaday oo laga hadhay. faraska amaba xayawaanka oo kale calafkii loo dhigay iyo daaqii loo dhigay hadday cuni waayaan iyana waxaa la leeyahy waa farasun saa'imun baa la leeyahy. limaada? liannahu amsaka wa kafa can alcalafi wa aklih. saasaa markaa saa'im loo leeyahy. qofka muslimka ee sooman markaynu dariiqa luqada aynu fiirinno waxaa saa'im loogu magacaabayaa waxa weeyaan liimsaakihi can shahwatay albatni waalfarj. wuxuu ka joogsanaya maxay tahay? wixii uu jeclaa ee caloosha uu geli lahaa iyo wixii uu jeclaa ee uu isticmaali lahaa oo farjigiisa inuu isticmaala ayuu ka joogsanaya. saasaa markaa saa'im loogu bixiyey, qofka muslimkaee sooman loogu bixiyey. soonka inta haddaynu kaga gudubno luqa ahaan, sharci ahaan waxaa loo yaqaanaa alimsaak can ilmuftiraati min tuluuci alfajri ilaa guruubi ashamsi biniyati tacabud. qofku waa inuu ka hadho ka joogsado waxyaalihii soonka burinayay ee lagu afurayey laga soo bilaabo markii fajriga labaad ee fajru saadiqa loo yaqaano uu dilaaco ilaa laga gaadhayo qorraxdu intay dhacdo biniyati tacabudna sidaas ugu joogsado. macnaheed maxay tahay? waxyaalihii shahawaadka ah ee shahawaatulbatni iyo shahawaatulfarji ayuu qofku ka hadhayaa. wakhtiguu ka hadhayana waxay ka soo bilaabmaysaa waagu markuu dilaaco dambe, waxaanay ku dhammaanaysaa markii qorraxdu ay dhacdo ayay ku dhammaanaysaa. laakiin shardi waxa u ah intaa uu ka hadhay biniyati tacabude inuu kaga hadho oo niye uu niyeysanayo soonka darteed uuga hadho. waxaasaa loo leeyay waxa weeyaan waxaa dhici karta qofkani muftiraadkii inuu ka hadhsan yahay oo aanu taabanin laga soo bilaabo waa berigii ilaa qorraxdu ay ka dhacasay, laakiin dan kale ay ku kaliftay ee soonaani ku kalifin. waa in markaa qofka imsaagan uu samaynayo iftiraadka uu ka hadhaayo waxaa ku kalifaya ay tahay
soonka ay tahay weeyaan. haddaynu masalada markaa ka soo gudubno tacriifkaas, waxaynu soo gudbaynaa goormaha la waajibiyey ama la sharciyeeyey oo ummadda muslimka loo sharciyey soonka. wakhtiga la sharciyey waxaa weeyaan bishii shacbaan sanadii 2 hijriyada ayaa la sharciyeeyey. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaa markii la fiiriyo waxa uu soomay 9 siniin ayuu soomay, 9 sannadood ayuu soomay. laakiin waxaa muhima oo isweydiin leh, ma maraaxil buu soo maray soonku, mise sidan hadda aynu naqaano unbuu hal mar ku laasimay oo ku waajibay? soonku wuxuu soo maray maraaxil ayuu soo maray. maraaxisha waxaa ka mid a culimmadu waxay sheegaan markii hore dadka waxaa lagu waajibiyey soomu yowma cashuuraa ayaa lagu waajibiyey, iyadun baa la soomi jiray, waajibna way ahaan jirtay. kadib waxaa la nasakhay markaa soonkii la soomayey yowma cashuuraa ayaa la nasakhay, waxaa lagu bedelay ramadaan baa lagu bedelay. ramadaanta lafteedii ayaa qaabkii loo soomayey maraaxil ay soo martay. marxaladda koowaad waxay ahayd qofku wuxuu khiyaar u lahaa inuu soomo iyo inuu iska afuro oo fidyi uu iska bixiyo. wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaami miskiin faman tatawwaca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. kadibna marxaladdii saddexaad ayaa loo gudbay. marxaladdaa saddexaad ee loo gudbay waxaa laga dhigay bisha ramadaan in la soomo inay tahay shay majzuuma oo la jasmiyey. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu ayaa layidhi. marka maraaxishaas ayay soo martay, wujuubka iyo soonka qaabka loo soomaya ay soo martay. waxaynu baraarujin lahay waxaa kaloo jirta iyana markii soonka la sharciyeynayay bidaayadiisii, akliga cuntada la cunaayo iyo wixii la cabaayo iyo jimaaca la jimaacayo haweenka wuxuu ahaan jiray mubaax. habeenka ramadaanta mubaax buu ahaan jiray, laakiin hal shardi baa ku qaydnayd. halkaa shardiya ku qaydnayd waxa weeyaan 2 shay midkood inaanay dhicin. labadaas shay maxay tahay? labadaas shay waxa weeyaan qofku inaanu seexanin ilaa inta laga gaadhayo cishaa'iga aanu seexanin, ama salaada cishaa'i aan la tukanin. laakiin haddii qofku maqribkii uu seexdo isagoon weli afurin, hadduu in yar gamaaro uu seexdo, maxaa xaaraan ka noqonayay? akligii, shurbigii, jimaacii intaba xaaraan bay ka noqonaysay. waxaa kaloo intaasiba xaaraan ka noqonayeen markii qofku salaada cishaa'i uu tukado. marka jaaniska la haystaa muxuu ahaan jiray? wuxuu ahaan jiray inta u dhaxaysa bayna maxaa dhahdaa salaati almaqrib wa salaati alcishaa. intaas ayuu ahaan jiray, intaasaa laga faa'iidaysan jiray. wixii ka dambeeyana maxay ahaan jirtay? xaaraan bay ahaan jirtay. qof markaa salaada cishaa'i laga bilaabo ilaa laga gaadhayo berri qoraxdu markay dhacdo cunto iyo cabitaan iyo galmo inta maxay ka ahaan jireen? xaaraan bay ka ahaan jirtay. waxaa dhacday markaa markii dambe sida fisaxay ku soo aroortay nin saxaabada ka mid ah ridwaanullaahi calayhim oo la ohan jiray qays ibnu sirma oo reer ansaareed ahaa, inuu ahaa mid sooman. maalintii oo dhanna markaa beer yar uu lahaa buu ka shaqaynayey. markii wakhtigii afurka la gaadhay ayuu haweenaydiisii u yimi. marka wuxuu ku yidhi cindaki طacaamun, waxa la cuna ma haysaa buu ku yidhi. markaasaa waxay tihi maya, walaakin antaliqu fa atlubu laka. ma hayay tiri, laakiin haddaan kuu raadinayaa ayay ku tiri. maalintii oo dhanna wuu shaqaynayey, waanu soomanaa. waa nin daalane. intii islaantu ay maqnayd ee meelaha wax ka soo raadinaysay ayaa indhihiisi ka xoog bateen, waa gamay, waa seexday. haweenaydiiba markaa u timi isagoo gamayba. markii aragtay waxay ku tiri markaa khaybatan laka, war hoog laaga baxay, maxaad u seexatay? maxaad ii sugi weyday intaan cuntada kuu keenaayo? maxaad ii sugi weyday ayay ku tiri. ninkii markaa haddiiba uu seexdo maxaa xaaraan ka noqonaysay? cunto iyo cabitaanba xaaraan bay ka noqonay, iyo galmo saddexdaba. ninkiina waa gamay, waa seexday. maantao dhan wuu soo soomanaa, haddana wuu shaqaynayey. markii maalintii dambe la gaadhay bartamaheedii ayuu miyir baalay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa markaa loo sheegay warkii oo loo soo tabiyey. ilaahay baa wuxuu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala uxilla lakum leylata siyaami arafath ilaa nisaa'ikum. aayaddaasaa la soo dejiyey, muslimiintana aad bay ugu farxeen. aayaddu marka waxay ku dartay wakuluu washrabuu
xataa yatabayana lakum alkhayط alabyad min alkhayط alaswadi min alfajri ayay ku dartay. kadib maxaa banaanaatay in qofku habeenkii oo dhan cunto cuni karo laga bilaabo maqribka ilaa laga gaadhayo waa beriga laga gaadhayo, intaas inuu wuxuu dhuucan karo oo dhocdo uu cuno ayaa loo baneeyey. maraaisha noocaasa marka waxaa soo maray soonka iyo waajibitaankiisa ayaa soo maray. aynu masalada caawa aynu ku eekaysanno biidn illahi tabaaraka wa tacaala. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.